بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا أحبابي في الله، waxaan ku jirnay khawaatirtii iyo kalimaadkii xawla Ramadaan aan kaga hadlaynay. Ramadaan waxaan sheegnay macnihiisa sharciga oo Ilaahay uu amray inay tahay in uu laga tago lagana joogsado xaaraanna ay noqoto waxyaalaha mubaaxa qofka oo ahaa oo shahwatul batni wa shahwatul farji ah oo biniyati taqarrub ila Allah. qofka cuntada wuxuu uga tagi karaa, shahwada wuxuu uga tagi karaa waxyaalo kale. dad waxaa jira hadda la yiraahdo xabsiga markii lagu dheereeyo cuntadii bay ka soomeen. soonka noocyo badan buu noqon karaa, qof inuu xoogaa wasnigiisa uu ku dejiyo ama culayskiisa, laakiin waa niyata taqarrub inuu noqdo. laakiin waxaa shardi ah fajriga laga bilaabo ilaa laga gaaro ghuruub ash-shams, sida aayadda qur'aanka ay tilmaameysaba. marka ay tilmaamayso wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr ثم أتموا الصيام إلى الليل. marka ilaa laga gaaro yani fajrkaas oo ay khaydka yani cadi dilimta ama waagu kolka uu dilaaco oo fajru saadiqa la yiraahdo uu soo baxo, kolkaas laga bilaabo ilaa laga gaaro ghuruub ash-shams oo mataqaanaa yani khaydka kale ee madow oo habeenkii iyo maalintii korkay kala socmaan, waa kolkaas la gaaro, waa aadaanka labaad. marka intaas wixii ka inta u dhaxeeya ayaa imsaaga laga rabaa, oo marka soomku waa imsaagaas iyo imtinaacaas oo laga reebtoomo. inta ka horeysa sida aayadda ku bilowday, waqtigaa ka dambeeya cuntadaada iyo wax walba way kuu bannaan yihiin oo mubaax ku ahaa. xaaraantu marna ma bannaanaanayso, leen soonku xaaraantana waa laga joogsadaa. haddiiba mubaaxaadkii laga joogsaday, xaaraantu min baabi alawlaa weeye. marka laakiin wixii waxaa kuu bannaanaanayo mubaaxa ku ahaa. uxilla lakum laylatu siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. marka aayaddaas waxa ay tilmaamaysaa inay xalaal ay ku tahay zawjadaadii iyo wixii ka dambeeyay. haddii zawjadii la sheegay iyo cuntadii iyo kulliba inay xalaal ay qofka ay u tahay. laakiin maalintii marka la joogo alla dartii baad uga tegaysaa, cuntadaas ayaad uga tegaysaa. siduu xadiidku nabiga saxiixa ku soo arooray, kullu camalu bni aadama lah ila as-sawm fa innahu lii. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi camalka bini aadamka oo dhan isagaa iska leh ilaa soonka mooyaane, aniga ayaa iska leh, anaa la ii tiiriyaa, wa anaa ajzii bih. marka anigana anaa marqaati, yani anigaana ka abaalmarinayo. marka yadacu طacaamahu wa shahwatahu min ajli. cuntadiisii iyo shahwadiisu aniga dartayda uga tagaya. marka anaa iska leh, anaa iska leh. marka xataa bacd alculamaa ay ka istinbaadeen, waa fahmi dheer oo ay ka istinbaadeen, xataa haddii qofka bini aadanka madlamo uu la tago maalinka qiyaamaha, waxaa la ogyahay madlamadaas in qofkii uu dulmiyey looga aargudayo. haddii aargudidana waxay ka imaanaysaa qofkan in xasanaadkiisa laga qaado. wixii xasanaad aad soo samaynaysay, qofkii aad dulmisay baa xasanaadkaaga la siinayaa. hadday xasanaadkaagu dhammaadaanna waxaa la yidhaahdaa qofkan sayi'aadkiisa ayaa noqonaya xaggaga in la keeno. marka ugu horeysa waxaa weeye xasanaadkaaga ayaa la qaadaya. marka xasanaadkaa la qaadayo kuma jiro ay yidhaahdeen soonka, wuxuusan ugu jirin. waxaa weeye kullu camal ibni aadama lahu ila as-sawm. soomka marka lahu maba ahaba, ilaahay isagaa isku tiiriyey. marka waa inta keliya baaqi kuu noqon karta marka inuu qofka uu ku dadaalo ramadaanka. marka sidaasuu wuxuu u yahay wax weyn uu u yahay islaamka xaggiisa. xikmadda uu islaamka uu u jideeyey waa xikmad badan. marka si kooban baan u sheegaynaa, marar kalaan insha allah si faahfaahsan oo mid loogu istaago. ama ileen waxa weeye maadaama taqwadu ay majaalaad badan tahay, nafta oo la tahirana ay majaalaad badan tahay. bishaan ramadaanna la yidhi waa bishii nafta la tahirayay, bishii taqwada la yidhi majaalaadkeeda in la isxasuusiyo, marba kastaba majaal in la isxasuusiyo ayay tahay. marka
camal ma jiro ilaahay un lagu farad yeelo ilaa ilaahay xikam ayuu yani uga dan leeyahay marka yani cabath ma aha xikma ilaahay uga dan leeyahay camalkan marka maxaa sidaa loogu weyneeyey bisha Ramadaan xikmooyin fara badan baa lagu sheegaa xikamta waxaa ka mid ah kow tazkiyatu nafs nafta in la tahiro oo taacada ilaahay lagu tahiro wixii ilaahay uu amray maadaama ilaahay awaamirtiisa sanadka oo dhan lagu amrayay awaamirtaas si practical ah in lagu geliyo tababar lagu geliyo oo aad naftii aad tahirto oo ay qasab kugu tahay inaad waxyaalaha aad dhowrto wixii lagaa reebana aad ka reebnaato oo markaas cubuudiyada ilaahay aad ku tadriib ku qaadato lagugu layliyo laylin lagugu sameeyo ilaahay cibaadadiisa aad ku noqoto mid baraatika ku qaato oo laylsa waa aragteen kolkii askar la tababarayo waa la layliyaa laylin way bishaan in la layliyo marka waxaa laylinta ugu koow ah naftaadii wixii xalaasha kuu ahayd yaa lagaa xarimay muddo oo subaxdii ilaa habeenkii lagaa xarimay oo qoraxdu ay ka dhacayso marka waxa weeye oo muddo 30 maalmood ama 29 maalmood marka intaas waxa weeye waa laylintaas oo naftaada aad tahirayso taa marka waa qaybta koowaad qaybta labaad waxa weeye iyadana xikmada ku jirta sida soonku sidiisuba waa sixi waa sixatul badn jirku wuxuu u yeeyahay يعني صحة بعض الروايات وحا سو أروري صوموا يعني صوم آد عافمادين عافماد آد هشيني marka caafimaadka oo la helo oo soonka sameeyo adibada mutakhasisiinta aad bay uga hadlaan ragga dhakhaatiirta way ka sheekeeyaan laakiin taa waxa weeye waxa ku jira laakiin in kor loo qaado jaanibka ruuxiga ah jaanibka maadiga ah marka loo fiiriyo in jaanibka ruux laana insaanku sidiisu wuxuu ka kooban yahay jaanib tiini ah oo turaab iyo laga abuuray dhooba laga abuuray iyo jaanib ruuxi ah markastaba siraac baa ka dhaxeeya marka kullama insaanku uu dhinaciisa ruuxdiisa ay kor noqoto oo la taskiyeeyo ay kor noqoto waxa weeye dhinaciya maadigu waa waxyaalaha insaanka uu ka maarmin sida cuntada biyaha shahawaadka waxyaalaha maadiye waxyaalaha insaanka oo yani la taaban karo jirkiisa laakiin waxyaalahan macnawiyaadka ruuxigiisa waa midda qofka حكتا إنسان نمدي سنة صوصارتا مركا تاس إن لو كوريالو بشاس إن آد لو كوريالو أو جارو درجة الملائكة أما أو رافا واختيادا قاركود محاكينا إن تببركاس نفتا آد لو تببرو marka waa xikmadaas iyadana ku jirta waxa kale ku jira xikmada ku jirta oo culimadu ay sheegaan soonku inuu yahay tarbiya lil iradati al insan insaanka iraadadiisa iyo doonistiisa iyo mujaahadatu nafs nafta oo lala jihaado yani inay mataqaana u baahan tahay sababtoo waxa weeye nafta in aan hadaanan la qaban oo lala jihaadin weligeed iyada ku hogaaminaysa dhinaca xumaanta ku hogaaminaysa marka jihaadka ugu weyn lala galay waxa kamid ah wixii u banaana horta in laga reebo wixii muharramaadkana min baabil awla marka waa mujaahadadaasna waa midda quraanka uu tilmaamayo walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana kuwa anaga jidkeena ku dagaalama oo ilaahay dartii naftooda ula jihaada lanahdiyannahum subulana subulkeena iyo jidkeena ayaan ku hanuuninayna hidaayay helaya marka kullama hidaayada waxa lagu helaa nafta oo lala diriro ayaa lagu helaa nafta lagu diriro حديث وحاكو سو أروري النبي عليه الصلاة والسلام كسو أروري أو صوم شهر الصبر صوم كبشة الصبر كأه لأن بشة وحلوقو مقعابي إنو يهي صبر مركا صبر كحتى قوني واللوغة هاد لكرا لكن هذا موضوعنا معها شهر الصبر قفكي صوم وثلاثة أيام من كل شهر بالوالبانا سدح مال كصوم وحويري يذهبنا وحر الصدر waxa ay tagsiinaysaa laabta caradeeda iyo cuqdadeeda iyo wax allaale ee wixii mataqaana cuqda iyo ku jiray ayay tagsiinaysaa carad waxa way waxaas oo dhan waxa tarbiyeynaya waxa la yiraahdaa mujaahadadaas ku sameynaya waa soomka marka faa'iidada ay leedahay waana xadiidkii kale sidoo oranay as-sawmu junna soom as-siyamu junna siyaamku sidiisaba waa junna waa gaashaan
وهو حسن من حسون المؤمن قفك مؤمن كحسن وحسون تيسكمد وقاشان وحكيه وح الله لي محرماتك أيو قاشان كاغيه بلطن أيات إسئلالي نيسا ومجاهدة النفس أيات هيسا ونفط الله دقال لميسا midda afaraad waxaan soo qaadan karnaa iyadana waxaa ka mid ah culimada waxyaalaha ay ku kulmeen yani aad uga hadlaan waxaa ka mid ah gariizada jinsiga ah waxay ka mid tahay aslixada ama hubka insaanka uu aad u isticmaalo bini aadanka uu ku baadiyeeyo ayay ka mid tahay marka maadaama ay saa tahay inta badan hadda xadaaraadku waxyaalaha oo maanta aan arkayno dadka ay ku baadiyoobaan waa gariizadaas marka gariizadaas oo ay tahay ayaa ta'thiir waxaa ku yeelanaya inaad ka kor noqoto oo nafti aad qabato oo kasru shahwa aad yani nafti inaad jebiso oo aad ku xoojiso soonka marka walidaalika madaayiqda ama xididada shaytaanka ina shaytaana yajri min ibni aadama majra dam siduu nabiga xadiiska uu ku yidhi dhiigu kaga socda marka dhiiggii baahida iyo dhowrsanaanta waa meesha lagu celinayo saa darteed uu nabiga dhalinyarada u dardaarmay yaa macshara shabaaba man istataaca minkum ulbaa'ata falyasum wuxuu falyatazawaj nabigu wuxuu yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj ha guursado fa innahu agadu lilbasar indhaha isagaa u laabniin badan oo waxa weeye indhahaaga waxaad qofka dhalinyarada ah hadduu guur helo uu laabaa wa axsanu lilfarj farjigana isagaa u dhowrsanaan badan ومن لم يستطع فعليه بالصوم marka qofkii aanan karin waa inuu soomaa soonku maxaa dhacay fa inna lahu wijaa wuxuu u yahay yani isaga mid celinayo oo dhufaanayo oo ka celinayo marka soonku oo waxyaalaha qaraa'ista jabiya ayuu ka mid yahay xikamta soomka iyadana waxaa kaloo ka mid ah ilaahay wuxuu xasuusinayaa insaanka nicamta ilaahay uu isaga u siiyey nicmooyinka uu ilaahay u siiyey marka qofka hadduu mar walbaba nicmada uu ku dhex jira ma xasuusanayo laakiin markaad yani cuntadaad cunto caafimaad qabto ood socoto oo wixii xoogaa lagaa joojiyo oo yani aad xoogaa dareenba uu ku galo marka waxaad xasuusanaysaa xasuustaas waxay kuu geysanaysaa miqdaara nicma aad ogaanaysaa marka aad ogaato cagsigeeda marka aad gasho marka qofkaaga marka dheregta iyo wanaagaad ku jirto markaad baahato ayaa dareemaysaa iyadana waxay kaloo isla markaas keenaysaa inaad u naxariisato walaalaha kale ee baahan oo maalin walbaba duruuftan oo kale ku jira in aad marka masaakiintii aad mar walbaba aad gacan aad u lahaato weeye ugu dambayn waxaan oran karnaa iyadana waxaan ku soo khatimi karnaa waxaasoo dhan la isku soo arooriyey waxaa weeye siyaamka ama soonku qofku wuxuu gaarsiiyaa darajatu taqwa darajada taqwada aha ee la raadinayay oo qur'aanku aayado badan oo cadiida لعلكم تتقون ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إذنك إيدتك إذنك هريب وحال إله أدر دارمي إلهي كعبصده marka aayado badan baa ku soo arooray taqwada oo xataa dadka aakhira liibaanaya inay mutaqiinta yihiin la tilmaamay marka taqwada madarasadii aad ku xaqiijin lahayd meeshii aad ku xaqiijin lahayd waa meeshaan marka saas ayada quraanku ilaahay uu oranaya ya ayuha alladina aamanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun marka taqwadaas oo majaalaad badan leh oo u baahan mid in loo dul istaago فترات كله أيام دول استاج دونا لكن هذا وحان إن شاء الله حلقة يعني كلن كله أن كجهد دونا هدو إلهي راهدو أحكام تواوين رمضان كا وحنا ساعة نقول لنا هاي أنت بدل مرة كاركوت أحكام تا دتك تشويش أيا كودعة وحيالا أن الحفظين كريم بالغات إجريا مركل لكن هدي سم ميسر لوجو سوكوبو محا أحكام تا طبعا كهذا لنا أحكام تاس الشروط ده iyo waxyaalaha mashaakilka mucaasirka ee xagga soonka hadda yimi hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh